munaasabad siyaasadeed loo soo agaasimay oo taageero loogu muujinayay xusbi xaakimka talada haya ee kulmiye taageerayaal ka soo jeeda xaafadda calaamada maxamuud haybe gacan libaax ayaa taageero mug iyo miisaan leh u muujiyay garabka uu hogaaminayo Jamaal Cali Xuseen ee la midoobay xusbi xaakimka talada haya ee kulmiye waxaa munaasabadani cududiisa ku soo bandhigay Xasan Badbaax oo kamid ah saraakiisha uu hogaaminayo garabka Jamaal Cali Xuseen ee la midoobay xusbi xaakimka talada haya ee kulmiye waxaana munaasabadani ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay oo si kal iyo laaba u qaabilay garabkaasi ku soo biiray xusbi xaakimka talada haya ee kulmiye Jamaal Cali Xuseen insha Allah bismillah mustaqbal on ku gartaagun fura ma sha Allah tabarakallah guriga soo isay boqolkiiba boqol waana idinku taageersanay dhamaantiinba sida ay nabadgelyo الله وبركاته. بركور واحد صلاة الإسلام يجب عليه على المسلمين يجب بناء عليه الصلاة والسلام. إذا هني نروح على الرقص وبدأ ندير في بدأ هل كانوا يجي وسلام يا جيران كل شوي تناول حافظات وكان تقولي هاي حسين حسن تعال ولكن حسين حسن بدباح وبين التاجنتين وهنا وبين عركينا وحكرت وأنا كم دولي أنا كلاه له أحساب ما تودك وشرحا ترتمى يستوى حلايا صاحب يا ترتمى إلى أي حدا يا أحساب أنا جدا يذكر حنتلا يحدد لو كلا أبوري ويانا نقولي أحساب تكره سيدا استهركين إيش كجوا الولد بعيا وتوسي وكفائيديس وحي قدم ترى الحكومة هايسا أي حمايسا أي الوقت تلاقي إيش كده محاركي إنه توسي كفائيديس يا سوات وكسبان دور الحكومة يعيش بيد هذا الوقت تلاقيه إنه توسي ومدة المعروف استجاب كل الأيام يا قلنا دور فامي من أحساب تكلم كتلنا هذا إشكالين وحنا كجاب عيا حسبي كلمية وحسبي بسويها كمية دارك ما تنتهي ساعية ميل وجوه من وراء تاجستنا أنا كنت تاجستنا فكر وحنا واباها كشوف شدا أنا كشوف لي حسبي كلمية جمال علي حسين وقلب السماء وعلينا sidoo kale waxaa madashani ka hadlay afhayeenka garabka Jamaal Cali Xuseen khibradda iyo aqoonta iyo waayo-aragnimada uu leeyahay aanu ku kordhin doono xisbiga kulmiye oo isbedel cusub aanu ka muujin doono dowladda uu hogaamin doono Muuse Biixi Cabdi mustaqbalka insha Allah waxaan halkan ka sheegayaa xafladii weyneyd ee midowga garabka Jamaal Cali Xuseen iyo xisbiga kulmiye waa la qaban doonaa dhawaan insha Allah wiilka soo socda waxaanu safaro ku tagnay oo awgeed gobolada bariga gobolada galbeedkana insha Allah bixinta khamiista ayaanu bilaabi doonaa oo keliya ugu horeyso ilaa buurama waan socon doonaa insha Allah annagoo la hadlayna dhammaan bulshooyinka ku dhaqan labada gobol ee bariga ee galbeedka Soomaaliya intaa markaan ka soo dhamayno kadib waxaanu samayn doonaa xafladii weyneyd oo runtii iyaduna noqon doonta xaflad qiimo badan kana soo qaybgeli doonta dadweynaha iyo taageerayaasha Xuseen Xasan Badbaax koonfurta Hargeysa iyo barigeeda iyo degmooyinka Maxamed Nuure iyo Maxamuud Haybe labadaba runtii aad iyo aad ayay mahadsantihiin sida fiican ee aa u muujiseen Badbaax iyo Jamaal Cali Xuseen ay hogaaminayeen laakiin nasiib darro way naga xumaaday waynu wada jeclay in maanta uu cid noqdo xisbiga ugu taageerada badan dalka tacab badan bay lagu gelin weeyay laakiin waa qadarada ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu halkaa ku badjaro marka intaa laga tago way noo fikireen haddana halkii aynu baarashuudka u goosan lahay rageedii aqoonyahanka haaye halka igu hogaaminayay xisbiga
ay inoo dooreen kulmiye ayaynu isugu biyo shuban horta xisbiga kulmiye laba xisbi qaran oo muxaafida ayaa jira waa laba xisbi oo muxaafida waa xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye la yidhaah deedna markii la fadhiistay ee aynu baaraan degnay ee aynu la tashanay taageerayaasheena guntiga gabagabadii waxaa taageerayaasha miisaanka leh ee saddexda degmo ka soo kala jeeda ku qaabilay xasan badmaax oo ka mid ah saraakiisha garabka jamaal cali xuseen ee la midoobay xusbi xaakimka talada haya kulmiye waxaana uu bartaasi hadallo door ah uu ka yidhi jir buu ahaa ee wacadka maray labadii jeerba idinkaa god nagu riday la waaban maayo hadalkoo nin waabta ma yihi intaa waxaan raacinayaa xusbiga maanta godka aad ku gudeenee u cid waa idinkaa godka ku riday waxaan raacsanayaa qabiil uf baan idhi uf baan idhi qabiil inta ku qaraabatana qawlaysato ayaan leeyahay waa laga gudbay waa horaa laga gudbay qabiil xisbiye qaran baynu samaysannay xisbi baa lagu abtirsanayaa qabiil uf baanu nidhi sidaa igaga warraya raggaannu is ognahayow wasalaamu calaykum waraxmatullaahi عمر شافي تي في عالمي قريو مقالة هرقيسان